الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين. داودياش قيمها يا قيام ودمير بوجهتا وحيدكم السلام على السلام الإسلام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وبرنامج وعي قلنتا وبرتين شاشة تلفزيون العالمية. برنامج كان عاوة وحا نلتشو على ودي وبرنامج كان هوري وغدا تلفزيون هذا الشيخ أحمد الجوهري بلال يا ولال يبا عمر oo milkiilayaasha ama mas'uuliyiinta sare ee Happy Marriage Academy oo xarun lagu wacyigeliyo guurdoonka ama lamaanaha isqaba. ahlan wa sahlan kusoo dhawaada mar kale. Sheekh Ahmed lixdaadi baadana waa sidii hiba tilmaantay khayr Allah siiyo. runtii waxa isku yimid laba qof oo labada qofba wata waxbay wataan jibba la soo galiyay labada qof programsiin waayo qof kastiba wuxuu ka yimid gurigan si ka duwan qofka kale guriga uu ku soo noolaa loogu noolaa. qof la arka marka wuxuu wataa aragti ka duwan qofkan wax kasta nolosha marka la fiiriyo. haddii ay guurka tahay laftigiisa, haddii ay dumar ahaan ay tahay, rag ahaan hadday tahay, qofba qofka kale yacni tamaaman bitamaam uu ka duwan yahay. saas daraaddeed waxyaabaha ka midka ah yacna keensan kara gurigu inuu qoysku inuu horu maro ama inuu burburo oo la isku qabto kala duwanaanshahay soo sheegtay ayaa jira. aragtida nolosha sida laga leeyahay qofku maaragtay aragti qabo ayaa jirta. lixda marka waxa ugu horeeya dhaqaalaha marka la fiiriyo waxaa la yidhahdaa lacagta si kala hadaan u dhaho waxa uu noqday hadda lacagtu waxay noqotay number 1 issue-ga dhex yaala qoysas badan oo burburay. sababta ay ku burbureenna isfahan la-aan la isla fahmi waayey maaraynta lacagta. gurigan waxaa soo gala lacag. qofku lacag la-aan ma noolaan karo ama ha ku noolaado maxaan ku dhahday qofka galbeedka jooga caymis ama ha ku idhaahdo maxaan ku dhahday social security taakulayn dawladdu ay taakulayso, ama ha ku noolaado business uu isagu samaystay oo maaragtay u bilqay u dhalay, ama ha ku noolaado shaqo uu cid shaqaale u yahay ku kalo income gurigan soo gala. labadii qof laba aragtiyo waxay kala wataan lacagta marka laga hadlo ninba sibuu lacagta u qiimeeya. walidaalika waxaad arki marka lala dardaarmayo qoyska familiga gabadha dhalay waxaa la leeyahay ninka haddii uu idin yimaado wiil ama nin idin yimaado idin kasoo doona gabadhiina waxaad ka fiirisaan laba meelood. kow diintiisa fiiriya, labo dhaqankiisa fiiriya, akhlaaqdiisa. dhaqankiisada waxaa ku dhex jira ma gacan adag yahay ninkaan, qacan qaad miyuu yaqaanaa ninkaan, banaankii suuqa inuu iska galo oo gogol dhaaf sameeyo miyuu yaqaanaa. bal ninkaani qaabka uu u dhaqmayo dhaqankiisa fiiriya. idaa jaakum man tardawna diinahu wa khuluqahu baa layidhi. marka khuluqdii inaga nasiib daro ma fiirina, waxaan fiirinaa oon xoogga saarnaa iyuu yahay wiilkaan halkuu reerku ka socdaa. waa nasiib daro oon u sheegaya walaalaha runtii aabayaashii hooyooyinka ah ee gabdhahooda bixinaya ku weydiinaya wiilka soo doonaya cidda uu yahay aanan fiirinaynin. runtii ta kale aan raba inaan ku darsado halkaa waxaa ka mid ah diinta marka la fiirinayo. diintu khamiis maaha, gadha maaha, waa shicaar. khamiiska iyo garhku waa shicaar, laakiin diintu waa maxay? addiinu mucaamala buu nebigu xadiis saxiixa. diintu waa ku dhaqan, waana meesha uu nebigu tilmaamaya sala allahu calayh wasalam. marka dhaqaalaha waa number 1. number 2 dhaqaalaha oo la isla fahmi waayo maxaa ka dhasha? 10ka 8aad weeyaan waxaa ka dhasha burbur in la kala tago. waxaa la yidhaahdaa waxaa idinkala geyn karaa qof aad weligaa meel kula soo nooleyn oo naftaada kugu xidhay oo aad isjeclaateen oo ad isla noolaateen. laba shay baa idinkala gelin karta. kow qofka ugu horeeya ee idinkala geyn karaa waxa weeye adiga naftaada. haddaad ogolaato interference shisheeye faragelin banaanka ka timiday, haddaad ogolaato adigaa isdilay. so adigu maxaad samaysay? weliba ninkaan sheegayaa furiinka gacantaadii ku jirtaa, adaa wax furay, xadhigaad xidhay ayaad furtay oo siidaysay. waxaad ogolaatay cid kale intay kuu waranto inaad dhegta u dhigto
ciddii kale ood gabadha maaragtay qiimeyn ood siin weydo yacna ahamiyad. taas marka sida oo kale gabadhuna waa sidaa marka ay miiska saar madaxayga ay leedahay maxaa ka horreey iyay u socota xaggee u socota isagay adduunka ka dooratay dadka kala dhadsamo markay tiri marka madaxaaga saar waxaa meeshaa ka baxay fahmi weyday kala duwanaanshihi waxaa la weynaatay mushkiladii ama dhaqaale ama wuxuu doonama noqde dhibtii kale kala weynaatay ninkan qiimihiisii. divorceka weyaan marka furiinka waxaa la yidhahda in kala geyn kara qodobka labaad dhimashada marka taa gacantaada kuma jirto waa ilaahay ba iskale waa qadartii adiga iyo qofkan aad isjeclaateen dhimasha idin kala geyn karta waxa ka duwan dhimashada waa adiga adoo haddaad ogolaatay waad kala tegaysi haddaad diidana waad wada joogaysi. qodobka 9aad waxa weeyaan cidda aan sheegayno interferenceka samayn karta ama maaragtay faragelinta shisheeye aan ku tilmaamnay saaxiib buu noqon hay-aday noqoni ilan hay-adaha dadku way kala geeyaan familiyada intay soo dhex galaan masixin buu kula hadlay ha dee iska caydi waliba gabdho badan baan u sheegaya halkan galbeedka jooga ha bacda madow u tuur lacag baa lagu siin keligaa lacag baad qaadani ma dhaqaalihii la socoyaa haddee qaraashiduma nin bay ii noqonaysaa ha gabadha soomaaliyeed nin uma noqonayso gabadh kastoo muslima ama gabadh kastaba haddaani muslim waxay doontaa noqoto uma noqonayso qofkii ka duwanaa ay u baahnayd. marka family law xididka cidda qof cid laga soo cidla laga soo hela ma jiro qof kastaba cid buu leeyahy laakiin ciddanaad ka dhalatay qaraabadaadi iyo familiga ah dhibna way leeyihiin faa-iidana way leeyihiin. cidda gabadha aada guursatay ama ninka aad ku guursadayna uu ka dhashay ama ay ka dhalatayna iyaguna sida oo kale. marka halkaa waxaan ku baranaa casharkaa sidee baan uga faa-iidi oon uga faa-iideysan khayrkooda sidaan u heli sharkoodana sidaan isaga caabin karaa. waa laga yaaba dadka qaarkood in oo mashar bay leeyihin xididku ha wuu jiraa laakiin khayrkoodaa badan qaar shar laayoo jiraan maxaa yeelay wadaad aan hadda ogahay inuu maaragtay nool yahay baa maalinaan caroos wada joognay hadal cajiib u wuxuu yihi reerkani way idinka guureena ka hara bay guursadeen reerkani guur macnaheedu waa la guuray dee guriga laguladka waa laga guuray waxaa jira guryo badan oo la dhisay oo faraha lagula jiro waan faraha laga qaaday gabadhi aanay ama wiilkii faraha lagu hayo faraha lagu hayo yani waxaa la rabaa in sida aan anagu raba inay u noolaato raxma si aan anagu rabo iyadoo ma ogolaanin ayadii wiilkii ninkii guursaday faraha kula jira choice ma laha iyado waan ka qaaday de josh hadday diidaanna waxay leeyihiin waa maaragtay waa lacaq yani mafaahiim waa caasi waxbaa isku dhacay waalidiinta marka halkaa inay fahmaan baa loo baahan yahay. waa mid aad u tiro badan oo runtii su-aalo badanna ay ka yimaadaan. qodobka 10aad waa xilka iyo mas-uuliyadda la kala leeyahay maalin dhaweyd bay hiba maaragtay casharkaan bixinayna qeyb ka mid ah yani kala dambeynta inuu ninkuna gabadha ku ixtiraamo wasiirka daakhiliyada inay tahay gabadhuna inay ku ixtiraamto isagu inuu maaragtay wasiirka khaarijiga yahay ama madaxii iyo ra-iisul wasaarihii in la kala yahay ma fahan hogaankii iyo maamulkii in la isku kala maxaa la kala leeyahay xil mas-uuliyadda kala ha shaqadii. ugu dambeyn laba casharoo cajiib ah hadduu khilaaf yimaado khilaafka see loo xaliya see loo fahmaa ma qofkaa xun mise ficilkaa xun in la kala saaro qofka iyo waxa keenay mushkilada in la aado qofka aan la ataagin oo aan la doonin qofku inuu safe noqdo laakiin la tuso qofka ficil buu leeyahay soo maha ilaahay wuxuu cambaariyey subxaana watacaala ahaanta qofka wax lagama sheegin laakiin waxaa laga sheegay ficilka u sameynay inuu xun yahay ficilkaa janno lagu galaa cadaabna lagu galaa ficilkaa qofka raalli geliya kuna necbaysiiyey maaha shaqsi maaha qofka ahaanta jismi ahaan ma aha ahaantiisa qofka taasaan ku baranaa marka sidee loo kala saaraa si aan u daweyno waana aad bayna u dhib badan tahay runtii inuu qofku kala saaro qofka iyo ficilka inuu kala saaro waxaa la weynaanaya marka ficilkii la xumaanaya markaasuu leeyahay isagiiyo tuur idhaafi su-aal baan weydiinaa marka halkan aan ku weydiinaya walaa marka aad qofkaan ka baxdo ee aad qof kala tagto maxaad ula tagto qofkii kale
ma isbedesha adigu ficilkaagi ma bedesha may waslaadiga wasla adigu qofka kalena markuu muddo kula yara noolaado uun sooma soo baxayaan dee waxaan ha marka maad ogoshay adigu in mar walba lagaa tago may ma ogolin marka waa inaad kala saartaan dhahnaa ficilka oo adigu hadduu ficilkaagu marta dhibayo qofka aad la nooshahay qof walba dhibaysa adigu wax iska bedel qof walad u tagtina way dhibi doontaa qodobka ugu dambeeya waa qodobka yani waxaa la yidhahdaa waa meesha waa meeshu neefku u dhintay baa la idhahda sax labada qof baahida ay isku qabeenay isku soo jiidaysay ugu dambeyntii raaxadu meeshay taallay raaxadii bay dhibi ka taalla waa maxay qurxinta qolka hurdada saasaan u saarnay marka dadka qaarkood waxay moodeen in color iyo maaragtay la mariyo ha qolka la bedelo in wax la sawiro decoration ha sax qayb buu ka yahay laakiin maha qaybta u weyn qaybta u weyn waxa weeyaan gabadha okay yaa la aadaa yaa wax loo doontaa yaa ilma dhala yaa nolosha sii wada waa gabadha marka halkaas wax badan baan ku baranaa waa meel dhaqankeenu aada u celiiliyey fool xumana ka dhigay wayna sameeyaan hana ka hadlin baa lagu odhan kama hadli karto waa lama taabtaan waa maxay waa sariirta hurdada ee raaxada lagama hadlo baahidii uu qofkani qabay uu qofka kale u doontay waxaa la leeyahay aamus dabool ha ka hadlin ha sheegan guryo badan oo taahaya ayaa jira marka oo halkaasi dhib ay ka jirto oo cabursan naqasku maaragtay ku dhagan yahay runtii maxaan u baahnay marka inaan ka imano qarnigii hore ma nooli qarni cusub baan nool 21 kama wada ujeedadeedu ma aha banaanka ha lagaga sheekeeyo maya wax walba wuxuu leeyahay cid ka takhasustay hadday dhibtaasi ku haysato ciddii kaa daweyn lahayd dhakhtarka somatikis marka madaxa lagaa qabto caloosha lagaa qabto soo jibiga ma aad doctor haddii arrintan waxay leedahay dhakhtarkeeda aad dad badan oo qarsadayaa jira weliba rag way qarsadaan markay da soo gaadhaan qarki ina qasan gabdhuhu gabdho qaarkood celiili bay ku jiraan waana qarsadaan wax kastood qarsatinna uu ku qarsadaa baa la idhaha ugu dambeynta virusku markuu jirkaaga oo dhan wada gaadho waa qarxi ha marka goray xeeriya fudhaal kala dhiceen ma heli kartid marka qolka hurdada waa muhiim jiddan in labada qofi ay ka wada hadlaan ay ka sheekaystaan siday isku marxabaysiin lahaayeen weliba dadka muddada wada joogay 20 sano ka badan wada joogay waxaad moodaa inuu ku yaro dhacay daal finland baan lagu caajis finland baan lagu weydiiyey labada yaro daasha ka warraba la yidhi sheekh marka waxaan ku yiri waxa xal u ah labadaasi inay xasuustaan berisamaadkii baa laga mugta isboonisiin baa la samayn karaa ha marka waxaan ku isla kaliyooga istaawada isfiirsada idinku جزاك الله خير شيخ أحمد يا ولا الهبة داوداش قيمة قايها بدن البرنامج كنا عاوة إنتاس أيام كسر جبيننا ويقدم إن شاء الله وحين قد قلينا إن شاء الله تطبق قلب وآدي وناكسن إسفهم لما أنا سيدي اللي جوها قاتشين لها أصبين وجسر دجنا كورسوينك وحين نسيف فهمينا قلب لا يكمدهين إلا يسلقيستو هذا من حريصنا إلا يصير هذا dhiirigelin iyo bogaadin labada dhinacba ka socota waxaynu gudagalaynaa adkaysiga iyo sabirka xilliyada dhibtu ay timaado aynu u baahannahay iyo sidaynu u geli lahayn waxaynu gelaynaa barnaamijka qaybtiisii ugu macaaneyd oo rag iyo dumarba aanu doonayno inay ka qayb qaato hadiyadda in la siiyo gabdhuhu hayse soo diyaariyaan odayaashana habeenkaas fasaxa shaqada ka qaado kamarada horteeda kaalay waxaanu mahadcelinaa allah subxaanahu wa tacaala waqtigana siiyey waxaanu mahadcelinayaa habi marriage academy شيخ أحمد جوهري بلال ولا شيء هبة عمر وحنو مهدعلنا يا فيلم ميديا برودكشن إنجنير عبد الناصر حرقه يعني محمد إبراهيم عبد الحديث قلت يا توفيق الله وحنا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.